بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الآن بaan idiin soo dhaweynayaa. Waxaan ku guda jirnay koorsadii Cashier Management System. Waxaana qaadanaynaa casharkeennii toddobaad. Casharka waxaa idinla socodsiinaa anigoo ah Farxaan Cabdalla. Waxaana kala socotaan Akademiyadda Software. Casharkeena toddobaad waxaan ku qaadanaynaa laba boonti ama laba qodob oo muhiim ah. Waxayna kala noqonayaan restaurant purchase, inaan alaab soo gadano oo ah cuntadii iyo cabitaankii inaan soo gadano marka hore. We purchase marka waxaan soo iibsan doonaa raw foods, cuntadii oo ceyriinka ahayd oon la karinin, fruits, khudaartii inaan soo gadano, iyo vegetables, khudaartii inaan cash ku soo gadano ama deyn ku soo gadano. Markaan tegayno aan rabno inaan maqaayadda u soo adeegno si kooban haddaan iraahdo, waxaan tegaynaa accounting app, kadibna vendor aan ku dhufanaynaa, bills aan ku dhufanaynaa, new aan leenahay, kadib waxaan buuxin doonaa orderka waxa aan soo iibsanayno. Qaybta saleska noogu xigta oo ciwaanka labaad, inaan markaan maqaayaddii aan u soo adeegno inaan iibki samayno oo point of sale-ka aan ku iibino cuntooyinkii iyo cabitaanadii. We make sales for our customers. Macaamiisheena waxaan ka gadi doonaa cuntooyinkii whether cash or credit. Deyn ama cash mid ay rabta ha noqotay, deyn iyo cash labadaba waa uga gadi karnaa. Marka waxaan tegaynaa point of sale app-ka, kadibna qaybta dashboard-ka waxaan furanaynaa cashier name-ka ama maqaayadda magaceeda meesha halka kasoo muuqan doonto. Kadib waxaan dooranaynaa table-ka, kadibna waxaan dooranaynaa register order-ka oo dalabkii aan ka qoraynaa, waa print garaynaynaa boonadii aan u daabacaynaa, waiterka loo dhiibayaa, kadibna markii uu cuntadii dhamaysto macaamilka lacagtii laga qabanaya. Aan ku hormarno soo adeegidda maqaayadda. Marka koowaad maqaayadda u soo adeegayna waxaan tegaynaa accounting, kadibna halkaa waxaan ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay vendors, kadib waxaan ku dhufanaynaa bills. Intaas markaan isla samayno waxaan ku dhufanaynaa new, kadibna waxaan dooranaynaa vendorka, halkaa waxaan ku qoraynaa vendorka ama qofka aan ka soo adeeganayno ee khudaarta aan ka soo iibsanayno ama cuntooyinka cabitaanada. Tusaale halkan waxaan gelinaynaa cash vendor ama vendor A waa vendor waxaad noqotid ama supplier, haddii si kale loo yiraahdo supplierna waa la yiraahdaa. Supplier A oo aan ka soo qaadi doono magaciisa inuu magaca supplier noo yahay. Haddii supplierkaas telephone number aan ka hayno waa in laga qoro oo hadhowtii maadaama uu yahay shirkadan ka soo adeegano lambarkeeda in systemka laga heli karo. Qaybtan hoose waxaan tegaynaa halka level aan lehe halka productiga ah. Qaybtan kore ayaa waxaan dooranaynaa add level, sax weeye. Halkaas waxaan ku qoraynaa faahfaahinta. Tusaale waxaan leenahay adeega maqaayadda. Halkan waxaan ka dooranaynaa akoonka adeega maqaayadda oo ka soo muuqdo oo la yiraahdo restaurant cost. Adeega maqaayadda waxa ay rabto ha noqoto faahfaahinta ay ku dari kartaa. Restaurant cost ayaa dooranaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa inta shay laga soo adeego hal xaba ka soo qaad, waa la isku dardarayaa intaasoo kiilo inta lama dhahayo. Totalka lacagta guud lagu soo adeegaya la gelinayaa, ka soo qaad inay tahay $150. $150 maanta maqaayadda loogu soo adeegay. Bill date-ka taariikhda waxaan dooranaynaa 22, halkaana waxaan dooranaynaa ayadan 22 accounting date. Kadibna inform aan leenahay, confirm. Sidaa markaan ku samayno waa deyn. Haddii aan tagno journalka, halkan waxaa u jeedaa account payable, deynana lagu yeesho oo credit taala, restaurant cost qarashaana maqaayaddu gashay oo adeega maqaayadda ah oo $150. Haddii aan profit and loss ka soo fiirino waa arki karnaa. Marka waa deyn, sidaas aan uga harnay, waa posted qaybtan. Haddii ay cash tahana pay aan leenahay, lacagtii aan bixin doonaa. One transaction oo deyna ayadana aan samayno. Hadda halkaa markaan ka baxo qaybta kore ku dhufto waxaa arki kartaa bill numberkii supplierka laga soo adeegay, taariikhda laga soo adeegay iyo lacagta iyo inay deyn tahay oo posted tahay. Mid cash ayaan haddana rabaa inaan uga soo adeegno. New aan leenahay mar kale. Supplierkana waxaan ka soo gadaynaa ka soo qaad Maxamed Jaamac ayaan ka soo adeegaynaa. Waxaanan dooranaynaa supplierka telephone numberkiisa ayaan halkaa gelinaynaa. Hadduu Gmail leeyahay geli karnaa, xaruntiisa meesha ku taalaan geli karnaa, faahfaahin kale dheeriya waan ku dari karnaa. Qaybta notice-ka ah haddii aan rabno shatigiisa, haddaan rabno yacni baabuur haddaan ku soo adeegano oo kale meel taagan, aan faahfaahinta halkaas ugu qoraa. wax sawir la soo gelin karaa, qoraalna la soo gelin karaa. waa un supplierka magaciisa Maxamed Jaamac hadda weeye. kadibna halkaa waxaan tegaynaa qaybtan hoose add level aan leenahay,
kadibna halkaas ku qor adeega maqaayadda maalin kasta sidaas ugu soo adeegaysaa. halkaana waxaan gelinaynaa restaurant cost oo ah maqaayadda adeegeedii. maanta iyadana waxaan kasoo qaadaynaa in $100 loogu soo adeegay. $100 aan gelinaynaa. taariikhda halkan waxaan isla dooranaynaa isla maanta, kadibna waxaan leenahay confirm. intaa markaas samayno waa deyn, waa sida tii hore. halkan waxay noqotay posted oo draft ma ahan, mana la beegareynin. hadday paid u baahantahay lacagta inaan bixino. marka deynana lagu yeeshay oo maqaayadda deyn. haddaad journalka tagto account payable deynana lagu yeeshay oo $100 ah. restaurant cost oo qarash maqaayadda ay gashay oo faa'iidada yareynaya. akoonka restaurant costina waa cost of revenue ama qarash la galay weeye. haddaan beegareyno marka oo ilaa dhacdadan cash inay taan ka dhignay bayna leelahan waxaan ka bixin akoonkii lacagta ka baxaydo ka soo qaad. markii la soo adeegayo waxaa laga soo adeegayaa EFC-ga. lacagti waa kan halkaad lacagta geli totalka faahfaahinta biilka noo ahaato, kadibna create payment. iyadana halkaas waxay noqon doontaa paid oo ah lacagtii waa bixinay. marka dhacdadan waa paid. iyada markaan soo adeegayna paid aan ku soo adeegnay, midana waa deyn. costigii aan galnay waa intaas. marka maqaayadda soo adeegideedu si kooban waa accounting inaad tagto, vendor tagto, bills tagto, kadibna new tiraahdo. halka aad doorato vendorka laga soo adeegayo ama cidda laga soo adeegayo, add level faahfaahinta aad ku qorto, akoonka restaurant cost lacagtana gelido, kadibna confirm tidhaahdo. haddii ay cash tahana paid aad sii dhammaystirto lacagta bixiso akoonkii ka baxay. intaas waa soo adeegidda maqaayadda. waxaan isla tegaynaa inaan wax iska iibino ama cuntadii aan iibino. markaan rabno maqaayadda inaan cashier ahaan uga shaqeeyo oo aan waiterrada ay dalab soo qaadaan oo macaamiisha loo adeegayo, waxaan tegaynaa appka point of sale-ka, kadibna qaybta dashboard-kaan tegaynaa. halkaa waxaa noo soo baxaya maqaayadda magaceeda ama cashier-ka magaciisa, hadba sida marka hore loo sameeyo ku xiran tahay. session-kan hadda waa closed balance, wuu xiran yahay. May 26 ayaa la xiray. marka waxaan leenahay open register. marka aan soo furanno waxaa noo soo furmi doona maalintaas iyo wixii lacag ku jira akoonka. marka opening-ka waxaan tegaynaa iska fiirinaynaa lacagta EFC-ga iyo dahabka, merchant-ga, salaam bangiga, wixii akoonada lagu shaqeynayay oo lacagu ku dhici doonaan inta lacag ku jirtay ayaan iska fiirinaynaa. halka marka waxaan ku qoraynaa akoonka lacagtiisa, faahfaahintan halkaan ku qoraynaa. tusaale ahaan cashier Farxaan ayaa furtay saake. EFC-ga waxaan leenahay EFC plus waa $0 weeye. idahab iyadana waa $0. kasoo qaad jeebna iyadana waa $0. macnaheedu saddexdaa akoonba lacag kuma jirto, saddexdaasana lagu shaqeyn doonaa. kadibna waxaan leenahay open. maalinteeni sidaas ayaynu sessionka aan u furana. marka halkaan joogno waxaa noo furan saddexdan daaqadood. qaybtan waa cuntooyinkii, cabitaanadii iyo waxyaabo lamid ah. marka daaqadan koobaad ayaan hal mar sharaxaynaa. qaybtan kore bidix kasoo bilow waa tables, waa teebalada noo samaysan. waxayna u kala qaybsan yihiin floor 1 teebaladiisa, floor 2 iyo floor 3 iyo floor 2. saddexdii biyaano kasta iyo miisaska ku diyaarsan ayay u samaysantahay. qaybtan kale register waa meesha orderka laga qoro oo qofka looga adeego. ala cuntooyinkii waa kan. qaybtan ku soo qormayaan qofka menu waxa loo qoray. qaybtan kore orders waaye. orderka hadda dalban ama socda oo hadda ku jira dalabka waaye oo weli lacagtiisa la bixinin. haddii aan rabno orderka la beegareeyo la bixiyana halkaasaan paid aan dooranaynaa. haddii jirto yacni dhacdo la rabo in la dabagalo oo weli aan dhammaanin. midda active-ka ahna waa hadda orderka taagan. qaybtan kale ee hoose haddii aan tagno qaybtan register payment markaan kusoo laabano, qaybtan dhanka midigta ah switch dark mode, shaashadan madow ka dhig waaye. install app application-ka la soo deg oo desktop-ka keensa weeye. kadibna waa cash in iyo out. cash-ka naga baxay iyo cash-kana soo gala hadda in aragti halkaas laga ogaadaa. reupload data uma baahnin oo ah data default oo iska samaysan oo alaabo iyo cuntooyin iyo waxyaabo kale iska soo dejiso, mana u baahnin. create product item cusub abuur, waa product cusub sida kan oo kale ah batiiqi babaygan oo kale soo abuur weeye, ma u baahnin. back endna waxa weeye gadaal u laabo adigoo aan iska xirin session-kan adoo xiranin oon ka bixin, gadaal uga laabo oo banaanka wax ka soo qabso. tusaale ahaan inaad dalab soo samayso kale banaanka ah, kadibna session ku soo laabo. kan oo kale aad u muhiim ah. back end markaan dhaho hadda aan isla aragno waa markaa rabtid inaad banaanka ka tagto.
point of sale ka rabtaa inaad banaanka ka tagto oo qaybtan kore aad tagi karto orderskii iyo orderska tagi kartaa sessionski paymentski ama product cusub aragto inaad soo aragto productida yaala ama configurationka wuxuuna hadaad rabto inaad kusoo aado banaanka markaa rabtid waa back end. Hadda waan ku laabanaynaa oo waxaan leeyahay continue selling. Markaan rabo inaan u laabto sessionkii noo furnaa qaybtan dhanka midigana aan tagno close registerna waa maalinkii markii shaqada ku dhamaato ama habeenkii oo shaqada aad ka baxayso kadibna waxaa leedahay close register oo ah shaqada waan ka baxay. markaa ka baxaysida waxaa laga rabaa lacagii in asla akaysido. dhankan bidixda markaa tagto halkan waa customerada macaamilka meesha laga dooranayo waa macaamilada mid kasta iyo magaciisa laga dooranayo. qaybtan kale waa note-ka faahfaahinta meesha laga qoro. tusaale ahaan order-kana faahfaahin lagu daray note-kana lagu daray. halkaana waa present-iga waxaa laga wadaa dalabkaani ma dine in wax cuntada gudaha lagu cunaya ma take out wax banaanka loo qaadanaya ma delivery online meel lagu dhiibaya. يعني take out waxa qof joogo qaadanaya iyo delivery online wax lagu bixinayo oo delivery online loo dhiibayo. qaybtan kale oo iyadana saddexda dhibcood aan u baahanahay bill waa meesha billka laga dalaco, customer note waa faahfaahin macaamilkaas meesha looga daro, guest waa macaamiisha dhan meesha laga arko, splitna waa marka boonada la kala qaybinayo oo qayb deyn qayb cash ama laba qofood oo kala bixinaysa loo kala qaybinayo, transfer margin waa marka la isku darayo laba bill. transfer course ka gudub waxaan u baahanahay edit order name orderka markaad inaad wax ka bedeshid discount oo faahfaahina. refund kana u baahana isagana waa markii dalab laga laabanayo oo refund la soo celiyay laga tirtirayo ama orderkii in la tirtiro. hadda waxaan oo dhan uma baahnin qaybta koobaad dalabkan bilaabayna ka soo qaad marka dalabka waxaa imaada table-ka floor 1 waxaa soo fariistay table-ka labaad ayuu qof soo fariistay wuxuuna dalbaday qaybta cabitaanadu tagay wuxuu doortay cabitaanka la yiraahdo afakaadaha wuxuuna ka dalbaday quantity-ga tag laba xabo ka dalbaday. sidoo kale wuxuu dalbaday caano booro wuxuuna ka dalbaday hal xabo waa ka halka ugu soo qormaya markaad dalbanayso quantity-ga dooranaysa kadibna waxaa ku dhufanay tirada. inta markii la joogay cuntadu tagay ama shelter tusaale cuntadu tagay food wuxuu dalbaday beerka wuxuu dhahay hal xabaan u baahanahay. sidoo kale waxaan kale u baahanahay chapati oo u baahanahay chapati isagana quantity-ga inta uu dalbaday 3 xabo dalbaday. marka macaamilkaas wuxuu dalbaday avocado caano booro beer iyo chapati. price-ka loogu dhufanayo waan bedeli karnaa oo halkan hadii aan doorano price tusaale avocado hadda xabadii waxay ku dhufsan tahay $2 oo hadaa aragtid labo lagu dhuftay hal waa $2. haddii aan rabno inaan wax ka bedelno price-ka waxaan ku dhufanaynaa halka kadib waxaan dooranaynaa 1.5 marka waxay noqonaysaa $3 macnaheedu laba shay laba cabitaan dalbaday oo min hal iyo bar ah. kadibna waxaan leenahay qaybtaana waxaan dooranaynaa customer-ka meeshaan marka customer magaciisa lama dooranayo waxaa la dooranaya waiter-ka order-ka soo qaaday create-aan leenahay haddii hore u samaysnaan halkaan ka dooranayna. hadda waxaan leenahay waiter cali waiter-ka la yiraahdo cali ayaa order-kan qaaday. waxaan fiirinaynaa ma dine in gudaha miyaa lagu cunayaa take out banaanka loo qaaday ma delivery waxaan leenahay waa take in gudaha loo qaadanaya. kadibna inaan boonada u daabacnaa rabnaa biil aan ku dhufanaynaa waan u daabacaynaa boonadii. halkan haddii aad aragto boonada waxaa arki kartaa qaybtan kore loogada halka kasoo muuqanaysa qaybtaana faahfaahintii hadda waa ka meesha telephone numberkii iyo xogtii. haddii aan rabno inaan kasoo dhaweyno oo aan doorano hadda printer-ka halkan ii dooran tusaale boos oo kala dooranaysa booska uu qaab u yaraanaya waxaan sii dooranaynaa booska laftigiisa kala duwan size-kaas hadda waxaan dooranaynaa aadka u yar. saan u soo dhaweyn karnaa oo waa kan ticket number-ka raacsiisan faahfaahinta telephone numberkii magacii table-ka uu fadhiyo qofka waa kan waiter-ka magaciisa order bill numberkii weeye halkaana waa format-ka. marka kan aad u yar yahay waxaan dooranaynaa xogaa yar waan weyneynaynaa waa kan kadibna print yaa leedahay warqadda u daabacaysa waxaa qaadanaya waiter-ka kadibna adeegii dalbaya uu soo qaadaya. markii sidaas u dhamaato oo waiter-kii biilkii halkaan uu nooga taagan yahay qaybta order-ka ayuu noogu taagan yahay waa kan shaqadii weli ma aanan dhamaynin cuntadii dalabkii u socdaa qof kale hadduu imaado waa usii wadi karnaa mid kale table kale haddii lasoo fadhiisto kasoo qaad lacagtii uu bixiyey waxaan leenahay pay
kadibna dooro akoonka lacagta lagu bixinayo waxaana ka dooranaynaa halkan qaybtan ayaan ka dooranaynaa idahab iyo wuxuu leeyahay salaam bangi iyo dahabshiil iyo jaab EVC oo kale aan ka dooranaynaa kadibna validate aan leenahay sidaas ayay noogu dhamaatay dhacdadii haddii mar kale loo daabacayo waa tan haddii kalena mar kale la daabacma waa iskaga baxayna dhacdadii saasay ku dhamaatay haddii aan rabno dhacdo kale tusaale ahaan iyadana waxaan dooranaynaa shaax ayaa waxaa lasoo dalbaday shaax caana geel waxaana laga dalbaday 2 qof isla socota 2 xabay dalbadeen quantiga 2 ka dhig sidoo kale waxay dalbadeen sheetare waxayna ka dalbadeen fish burger oo 2 xabo ah iyo waxay kaloo dalbadeen sambuus oo 4 xabo ah inta markay dalbadeen waiterka u adeegay hadii uu hore u sameysnaa sida waiterkii hore oo waiter cali waa dooranaysaa kadibna gudaha ayuu ku cunayaa kadib waxaan dooranaynaa qaybtan hoose oo payment ah intaana payment dhihin waa inaan boonada u daabacno waxaan ku dhufanaynaa bill kadibna u daabac boonadii marka u daabacdid waiterkii qaadanaya wuxuu u geynayaa kitchenkii ama kuuga jikada ku jiray kadibna uu soo adeegayaa adeegu cuntadii uu soo qaadaya wuxuu u geynayaa qofkii customerka ahaa warqadiina wuu siinayaa marka kadibna cuntadii saasay ku dhamaanaysaa macaamilkii imaanaya lacagtii uu bixinayaa kadibna bayaan leenahay akoonka lacagta uu ku bixiyay ayaan dooranaynaa ka soo qaadanaynaa EVC faa'iidadaan leenahay sidaas ay hawshu ku soconaysaa ilaa laga gaaro sessionka markii la xiraayay sessionka markii la xiraayana waan isla arki doonaa marka qof kale markuu soo fariisdana table-ka floor-ka uu soo fariisto floor 2 uu soo fariistay wuxuuna soo fariistay table-ka labaad wuxuuna dalbaday waiterka cali ayaa u adeegaya wuxuuna dalbaday ka soo qaad cabitaan avocado wuxuu ka dalbaday 2 xabba gacanta iga dhacay sidee loo tirtiraa kaliya siinaysaa kadibna backspace-kaas calaamadaas lagu tirtiraa haddii aan rabo inaan tan tirtiro sidoo kale iyadana halkaas laga tirtiraa quantiga haddaan rabo halkaana laga bedelaa quantiga 3 xabbo bareyska haddii aan rabana halkaana laga bedelaa isagana ka soo qaad waxaan rabaa batiiq isagana 2 xabbo cabitaanka yar ama water yar isagana waxaan ka dooranaynaa inuu dalbaday quantity 5 xabbo sidaas isla markaa haddii loo adeego pay waa dhihi karnaa haddii kalena waa inaan u dalac biilkii aan u daabacno oo boonadii loo geeyo cuntadii uu soo cunteeyo adeegi marka uu soo dhamaystana bayaan leenahay lacagtii aan ka qabanaynaa marka lacagtaas waxay ku xisaabtaninaysaa waiterka uu adeegay sidaas ayay noogu dhamaatay qaybtii saleska iyadana waxaan dareemayaa inaan qayb muhiima ka qaadanay casharka xigana saleskan ka sii dhigi doonaa qaybo kamid ah marka halkaas ayaan casharkeena ku joojinaynaa waxaan ku qaadanay inuu qofku sameyn karo iib maalinle ah ha noqoto cuntooyin cabitaan wax rabta ha noqoto okay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan sessionka xiro intaanan ka bixinin sessionka sidee loo xiraa markii aad sidaan maalintii oo dhan iibka u samayso sessionka waxaa loo xiraa qaybtaas ku dhufanaysaa kadibna waxaa leedahay close register kadib halkan wuxuu kuu soo saaraya EVC plus maanta waxaa shaqaysay openingka markaa furanayday 0 ku furatay payment methodka cash in-ka ku soo galay waa $23 counted-ka markii la soo tiriyo halkan hoose ayaa ku qori doontaa cash countiga laakiin difference-ga $23.5 ayaa laga rabaa inaad hayso halkaana waxaa gelinaysaa $23.5 qaybta marka waa openingka oo furitaanka ahayd closing-kana inta ahayda ayaa ku qorayda tusaale cashier waxaan ku qoraynaa cashier farxaan EVC-ga inta aan hayo EVC plus waxaan hayaa tusaale ahaan $23.5 sidoo kale idahab waxba kuma dhicin iyadana waxaan hayaa 0 jab iyadana waxba kuma dhicin waxaan hayaa 0 daily report kana la degayaa kadibna groupka shaqada ama meesha managerka ayaan u dirayaa cash in iyo out kana waa la degi karaa iyadana waa wixii lacagna soo gal naga baxay close register haddii aan dhahana maamulku isaga ba arki kara faahfaahinta marka waxaan leenahay close register sidaas ayaad maalintaadii shaqada ku dhammayday markaad soo gashay waad furatay balansigan waa iska fiirisay kadib markii aad shaqada ka baxaysana sessionka waa xirtay maalintaas waxaa la ogaanayaa inta aad session ku furatay iyo inta ku xirtay haddii aan rabo in marka maalintaas aan ogaado order aan ku dhufanayaa sessionkaasaan ka arki karaa wixii dhacayna halkaan aan ka arki karaa marka casharka aan ugu soo dheeraanaya halkaas ayaan ku joojinaynaa casharkeena 7